waraysi samaysay Radio Muqdisho ayaa waxa lagu ogaaday in golaha fulinta kooxda Al-Shabaab uu ka kooban yahay 85 xubnood waxaana la xaqiijiyay in 42 xubnood oo kamid ah 85 xubnood ee golaha fulinta inay yihiin Soomaali halka inta kalena ay yihiin ajaanib waxaana ajaanibta kooxda Al-Shabaab golaheeda fulinta ku jira madax waxaan lagu magacaabo Khalid Al-Muhajir Al-Mustafa oo dhawaan ku geeriyooday dagaal ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana uu dhashay ninkan wadanka Pakistan marka laga hadlayo dhinaca horjoogayaasha Soomaalida ayaa waxa lagu waramayaa inaysan tagin agaga hore dagaalada isla markaana aysan weligood qayb ka noqon falalka ismiidaaminta ee kooxda Al-Shabaab ay sameeyaan tiro yar oo kamid ah ajaanibta ku jirta golaha fulinta oo iyagu aan lahayn meel ay u laabtaan noloshooduna ay xiriiri gashay ayaa qayb ka noqda safafka hore ee dagaalada iyo falalka ismiidaaminta waxaana ragga Soomaalida ee kooxda Al-Shabaab golaheeda fulinta ku jira inta aynu magacyadooda idin soo ururnay kala yihiin sidan Ahmed Abdi Godane waa ninka ugu sarreeya horjoogayaasha Soomaalida ee kooxda Al-Shabaab Ibrahim Haji Jamac Mi'ad oo loo yaqaano Ibrahim Afghan waa ku-xigeenka koowaad ee kooxda Al-Shabaab ahna u qaybsanaha dhinaca maaliyadda Mukhtaar Rabo Abu Mansuur waa ku-xigeenka labaad ee kooxda Al-Shabaab waana horjoogaha maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo u dhiganta abaanduule ciidan Fuad Maxamed Khalaf Shangole waa madaxa wacyigelinta kooxda Al-Shabaab waxaana uu qaabilsan yahay propagandada iyo inuu carruurta ay soo qaldaan ka dhaadhiciya aragti qaldan oo loo kaysiyo kuwa diimeed Mukhtaar Abu Muslim waxa uu qaabilsan yahay fadwada waana nin marka Al-Shabaab ay doonayaan inay wax sameeyaan u fadwado wax kasta sax iyo qalad waxa yihiinba uga dhiga mid diineed Khaliif Maxamuud Warsame oo Khaliif Cadala loo yaqaan waxa uu qaabilsan yahay xiriirka NGO-yada iyo hay'adaha samafalka MM Karatai nin la yiraahdo waxa uu isna u